sanadkii 1993 saynisyahanadu waxay heleen farsamo cusub taas oo u oggolaanaysay inay ku daaweeyaan cudurrada aan lala tacaali karin iyagoo beddelaya hidasidaha DNA-ga. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii 2016 dowladda Maraykanka ayaa mamnuucday farsamadaas sababtoo ah khatarta ah in si khaldan loo isticmaalo iyagoo ku tilmaamay inay tahay hub wax gumaada. Muuqaalka like noo saar. Xilligan aan joogno, xarunta hawada sare ee Athena ayaa gebi ahaanba burbursan. Dhammaan shaqaalihiina way dhinteen marka laga reebo gabadha la yiraahdo Kerry, taas oo qolka laga hago hawsha ka codsanaysay caawimaad. Hase yeeshee, maamulaheedu ma rabo inuu u furo albaabka lagaga baxsado khatarta ilaa ay Kerry soo qaaday dhalooyinka waxyeelada leh ee meesha yaalay. Kerry oo baqanaysa balse doonaysa inay noolaato waxay dhex martay burburka waxayna soo qabatay 3 dhalo, laakiin nasiib darro waxa arkay cadowga. Waxaa soo baxday in tijaabo fashilantay ay abuurtay dooli weyn oo bahal noqday kaas oo waashay, haddana wuxuu eryanayaa Kerry. Gabadhii erbixiyeenka ahayd ayaa orod kaga baxsatay iyadoo ka dhex dhuumanaysa burburka iyo ololka inta ay awoodo, waxayna gashay qolkii baxsadka waxyar ka hor inta uusan dooligii qaban. Kerry waa ay baxday waxayna daawatay xaruntii hawada sare oo qarxaysa, laakiin nasiib darro weerarkii dooliga ayaa waxyeeleeyay qolkii ay la socotay. Markaas ayuu isna qarxay oo dilay Kerry iyadoo qaybihii burburka ay dhulka ku soo dhaceen. Muddo kadib, goobta xayawaanka lagu xanaaneeyo ee San Diego, ninka ku takhasusay barashada daanyeerada oo la yiraahdo Davis ayaa saaxiibkiis Nelson iyo 2 shaqaale oo cusub baraya halka ay degan yihiin gorilada. Midka cusub ee gorilada oo la yiraahdo Bafo ayaa aad u kulul oo xanaaq badan oo dhibaysa gorilada dhadiga ah. Markaas ayaa Davis wuxuu isticmaalay luqadda calaamadaha sign language-ka si uu u dejiyo. Xilligaas waxaa soo muuqday saaxiibka ugu dhow Davis oo ah daanyeerka weyn ee Georgie. Markaas ayay joogitaanka gorila kale oo lab ah waxay keentay in Bafo uu mar kale xanaaqo. Mid ka mid ah shaqaalihii cusbaa ayaa cabsaday oo isku dayay inuu cararo. Markaas ayuu Bafo bursaday oo dhulka ku riixay. Laakiin ka hor inta aan wax dhib ah dhicin, Georgie ayaa soo dhex galay oo baqdin geliyay Bafo. Markay taasi dhamaatay, Georgie iyo Davis waxay isdhaafsadeen kaftan badan iyagoo isticmaalaya luqadda calaamadaha sign language-ka. Davisna wuxuu xasuusiyay Georgie in Bafo uu hadda qoyska ka mid yahay, sidaas darteedna ay tahay in la ilaaliyo. Markii Davis uu codsaday in gacmaha ay isdhaafsadaan, Georgie wuxuu markiiba u tusay farta dhexda isagoo ku kaftamaya. Kadib, mid ka mid ah shaqaalaha ayaa isku dayday inay Davis weydiisato inuu bannaan ula baxo si ay waqti u soo qaataan, laakiin wuu diiday. Nelsonna wuu ku kaftamay isagoo leh wuxuu ka doorbidaa xayawaanka. Goor dambe oo makhribkii ah, 3 walxood ee dhalooyinka ahaa ee ay Kerry soo qaaday ayaa dhulka ku soo dhacay. Mid wuxuu ku dhacay goobtii xayawaanka wuxuuna ku buufiyey Georgie waxyaabihii gudaha ku jiray. Midka labaad wuxuu ku dhacay kaymo waxaana helay Yey, halka kii saddexaadna uu ku dhacay webi uuna liqay yaxaas. Maalintii xigtay, Davis ayaa yimid goobta xayawaanka wuxuuna war xun ka maqlay Nelson. Georgie wuxuu u dhaqmayaa si la yaab leh oo aad u kulul, wuxuuna u dhacay meesha ay degan yihiin orsooyinka, halkaas oo uu ku dilay orso. Markii uu Davis u yimid inuu eego xaaladda Georgie, wuxuu ogaaday in goriladii ay dhaawacday orsadii ay la dagaalantay. Georgie aad ayuu u murugaysan yahay, wuxuuna qirtay inuu khalad sameeyey isagoo raaligelin bixiyey, laakiin naxdinta ugu weyn waxay tahay in Georgie uu aad u weynaaday oo dherer iyo ballacba ku kordhay. Kooxda Davis ayaa baaray goobta. Markii ay heleen weelkii ayay go'aansadeen inay u haystaan si baaritaan ah. Kadib, Davis wuxuu baaray dhiigga Georgie wuxuuna arkay wax aan caqliga gelayn. Dhiigga waxaa ku jira xaddi aad u badan oo ah hormoonka koritaanka ah, kaas oo markii horeba ay ahayd inuu Georgie isla markiiba u dhinto. Nelson wuxuu kula taliyey in Georgie la dilo maadaama uu khatar yahay, laakiin Davis wuu diiday ilaa ay xog badan ka helaan. Dhanka kale, walaalaha kale ah Barrett iyo Claire ayaa dood weyn dhex martay. Shirkadooda oo la yiraahdo Energen ayaa ka dambeysay cilmi baarista. Barrettna aad ayuu u caraysan yahay lacagta badan ee kaga khasaartay markii xaruntii hawada sare ay qaraxday. Laakiin Claire way ku faraxsan tahay natiijada sababtoo ah dooligii bahalka noqday wuxuu xaqiijiyey in mashruucii projectiga uu guulaystay. Waxay kaloo rajo ka qabtaa horumar kale sababtoo ah warbixin ka timid bulshada cilmiga xidigaha ayaa sheegtay halka uu ku dhacay mid ka mid ah weeladii cilmi baarista, kaas oo loo sameeyey inuu u adkaysto kulaylka marka uu dhulka ku soo dhacayo. Sidaas darteed, waxay shaqaalaysiisay nin la yiraahdo Burke iyo ciidankiisa gaarka ah si ay u soo saaraan weelkaas. Kooxda Burke waxay tageen kaymihii waxayna ogaadeen in weelkii uu jabay oo uu maran yahay, sidoo kale dhammaan yeydii meesha joogtay waa la laayay. Markaas ayay Claire u sheegeen wixii ay arkeen. Tani waxay Claire ka dhigtay inay garato in yeydii ay isbedelayso. Markaasay Burke ku amartay inuu bahalkaas soo qabto. Magaalada dhexdeeda, gabadha la yiraahdo Kate ayaa daawanaysa warka, waxayna maqashay masiibadii ka dhacday xarunta Athena iyo weerarkii Georgie uu ku qaaday oorsada. Maadaama ay horay u ahaan jirtay saynisyahan u shaqeeya shirkadda Energen, waxay isku xirtay dhacdooyinka waxayna u carartay goobtii xayawaanka. Halkaas waxay Davis ugu sheegtay in weelka uu helay uu yahay wax ay iyadu gacanteeda ku samaysay. Davis markii hore wuu ka shakiyey, laakiin Kate waxay bilowday inay sheegto dhammaan calaamadaha uu Georgie dareemayo si ay u caddayso inay run sheegayso iyo inay tahay qofka keliya ee daaweyn kara Georgie. Waxaa soo baxday in daawada uu bedelayo DNA-da Georgie isagoo ku qasaya DNA-da xayawaano kale, taas oo keenaysa inuu si degdeg ah u weynaado uuna noqdo mid aad u kulul. Si lama filaan ah, Georgie ayaa aad u carooday, wuxuuna bilaabay inuu garaaco siligii ilaa uu ka jebiyey oo uu baxsaday. Kadib, wuxuu bilaabay inuu dhex ordo goobtii xayawaanka isagoo qalqalgeliyey dadkii martida ahaa, xitaa wuxuu feer ku burburiyey baabuurta. Booliiska ayaa isla markiiba yimid iyagoo u diyaarsan inay toogtaan, laakiin Davis ayaa soo dhex galay oo Georgie ku dejiyey luqadda calaamadaha ee sign language-ka. Booliiskii ayaa qoryahoodii hoos u dhigay, laakiin nin shooter ah oo saarnaa diyaarad helikabtar ah ayaa
ayaa amarkaas maqlin wuxuuna George ku dhuftay irbadaha hurdada. Dhanka kale gudaha keynta burka iyo kooxdiisii waxay la kulmeen xayawaan weyn oo ah yeydii weynayd ee bahalka noqotay. Waxay ku guuleysteen inay diyaaradda ka toogtaan kadibna waxay u degeen inay soo raadiyaan meydka yeydaas. Si kasta ha ahaatee markii ay askartu tageen meeshii ay yeyda ku toogteen meydkii waa la waayay. Bedelkeedii waxay dhulka ugu tageen raad aad u weyn oo lugta yeyda ah taas oo cabsi gelisay qaar ka mid ah askartii. Abaar kadib yeydii ayaa si kedis ah u soo weerartay waxayna bilowday inay askartii mid u disho. Askartu waxay isku dayeen inay isku difaacaan hubkooda. Diyaaradda helikabtartana waxay isticmaashay qori weyn laakiin toogashadii hore ee lagu dhuftay waxay sababtay in maqaarka yeegu uu noqdo mid aad u adag oo xoog badan. Rasaastuna hadda waxba kama tartayso ee keliya waa ay cuncunaysaa. Bahalka wuxuu u weynaaday si la yaab leh wuxuuna awoodaa inuu kor u boodo si uu u soo rido diyaaradda helikabtarka wuuna burburiyey. Dhulka waxaa ku badbaaday oo keliya burke isagoo isku dayay inuu mar kale la dagaalamo yeyda laakiin xayawaankii ayaa si fudud u liqay u cunay. Fiidnimadii Davis iyo Kate waxaa xiray sarkaal ka tirsan FBI-da oo la yiraahdo Russell isagoo ku eedeeyay inay tijaabooyin sharci darro ah ku sameeyeen George-na waxaa lagu qaaday diyaarad ay leedahay dawladdu iyadoo iyaguna ay la socdaan. Markii uu Davis ku arkay George qafiska dhexdiisa wuxuu dareemay in dhaawacyadii ka soo gaaray oorsada ay durba bogsanayaan. Kadib Russell ayaa bilaabay inuu su'aalo weydiiyo isagoo ku diganaya Davis oo shaqadii ciidanka uga tagay inuu xayawaan xanaaneeyo. Russell wuxuu u dhaqmayay si edeb darro ah isagoo aflagaadeeyay labadoodaba isla markaana iska indha tiray digniintooda ku saabsan khatarta ay leedahay in George lagu hayo diyaarad dhexdeeda. Russell wuxuu kaloo sheegay in Kate laga soo eriyay shirkadda Energen 2 sano ka hor kadib markii ay isku dayday inay xaddo cilmi baarista shirkadda taas oo ay 13 bilood u xirnayd. Tani waxay keentay in Kate ay qirato inaysan dhab ahaantii haynin daawada George haddana Davis ma aaminsana iyada. Dhanka kale shirkadda Energen dhexdeeda Claire waxay ogaatay in Kate la xiray. Bareetna wuxuu u malaynayaa inay Kate ururinayso caddaymo ay shirkadda ku duminayso markaasuu u arkay inay khatar tahay. Waxaa sidoo kale soo baxday in Claire ay dhab ahaantii haysato daawadii markaasay qorshe samaysay. Waxay go'aansatay inay soo jiidato dhammaan xayawaanada isbedelay oo ay keento dhismaha shirkadda iyadoo isticmaalaysa mawjadaha raadiyaha ee daciifka ah. Ciidankuna halkaas ayay ku sugayaan si ay u dilaan. Sidaas darteed Claire waxay dib u ururin kartaa DNA-da kadibna iibin kartaa. Kagama aysan walwalsanayn Kate sababtoo ah waxay hubaal u ahayd in George uu dadka diyaaradda saaran dhammaan dili doono goor ay ahaataba. Markii ay Claire shiday qalabkii yeydii ayaa isla markiiba joojiyey burburintii uu ku hayay wadooyinka iyo baabuurta wuxuuna ku soo jihaystay dhanka magaalada. Lizzie oo ah yaxaaskii weynaa ee isna isbedelay ayaa dareemay calaamadii isna wuxuu ku soo dhaqaaqay magaalada. Diyaaradda dhexdeeda George waxaa loo qorsheeyay inuu hurdo oo la suuxiyo laakiin qalabkii ay Claire shiday ayaa ka dhigay inuu soo tooso isagoo aad u caraysan. Wuxuu burburiyey qafiskii wuxuuna bilaabay inuu wax walba oo agtiisa yaalay jajabiyo isagoo dadka u tuurayay sidii wax aan miisaanba lahayn. Askartii ayaa bilaabay inay toogtaan laakiin waxba kama aysan tarin. Markii uu Russell isku dayay inuu raaco George ayaa si degdeg ah lugtiisa hoosteeda ugu riixay. Davisna wuxuu isku dayay inuu la hadlo saaxiibkiis laakiin xilligaas askari kale ayaa mar kale toogasho bilaabay taas oo George aad uga sii xanaajisay. Basaas ayaa ku dhacday sanduuq ay ku jireen waxyaabaha qarxa markaas ayay qarxeen oo ay burburiyeen mishiinkii diyaaradda taas oo keentay in diyaaraddu ay bilowdo inay dhulka ku soo dhacdo. Xilli uu George ku dhiganaa derbiga diyaaradda kadib markii uu gaari ku cadaadiyey Davis ayaa ku degdegay inuu isaga Kate iyo Russell u xiro baarashuudka laga boodo diyaaradaha. Waxay ku guuleysteen inay ka boodaan diyaaradda waxyar ka hor intaysan dhulka ku dhicin iyadoo George uu gudaha ku jiro. Si kastaba ha ahaatee markii ay dhulka ku degeen ee ay tageen halkii diyaaraddu ku burburtay ma ay helin meydka George. Waxay arkeen raad ku yaala cawska kaas oo muujinaya in George uu ka badbaaday shilka haddana uu ku socdo dhanka magaalada. Shirkadda Energen dhexdeeda Claire ayaa aad u carootay markii ay maqashay in Kate ay ka badbaaday shilka diyaaradda gaar ahaan markii ay yimaadeen booliska FBI-da si ay u qaataan dhammaan dukumiintiyada iyo baaritaanada shirkadda. Si ay magaceeda u qariso Claire waxay booliskii u sheegtay in Kate ay tahay qofka ka dambeeya dhammaan qasna ay abuureen bahalladaas. Dhanka Davis wuxuu isku dayay inuu Kate ka tago sababtoo ah wuxuu ka daalay inuu mar walba arko xumaanta bini'aadanka taas oo uu marar badan soo arkay xilligii dagaalka. Markii uu George soo badbaadiyey isagoo yar George wuxuu ahaa ilmo ku dhuumanaya baabuur hoostii isagoo daawanaya dad dilayay hooyadiis. Si kastaba ha ahaatee Davis wuxuu go'aansaday inuu Kate fursad siiyo markii ay u sharaxday sababtii ay u samaysay farsamada cudurkan. Waxay doonaysay inay ku daawayso walaalkeed oo qabay cudur dhimasho keenayay laakiin markii shirkaddu ay doonaysay inay ka dhigto hub wax lagu dilo waxay isku dayday inay burburiso taas ayaana keentay in xabsiga loo taxaabo. Intii ay xabsiga ku jirtay walaalkeed waa uu dhintay. Sarkaalkii FBI-da ee Russell ayaa isna hadda bilaabay inuu jeclaado labadan qof maadaama ay noloshiisa badbaadiyeen wuxuuna la xiriiray raggoodii si loo soo badbaadiyo. Kooxdii waxaa loo kaxeeyey saldhig ciidanka cirka ah halkaas oo Cornel Black uu ku tusay muuqaalo muujinaya George iyo yeydii oo u ordaya dhanka magaalada. Davis wuxuu tilmaamay inay tahay wax aan macquul ahayn iyo yey ay hal dhinac ugu wada socdaan xariiq toosan. Kate-na waxay sheegtay in wax un ay u yeerayaan taas oo macnaheedu yahay in Claire ay magaalada ku sugayso iyadoo haysa daawada. Russell wuxuu difaacay talada Davis iyo Kate laakiin Cornel Black ma uusan doonayn inay dad shacab ah soo dhex galaan hawsha markaas ayuu iska buriyey. Markii ay banaanka u baxeen Davis wuxuu isku dayay inuu askarta ka codsado inay iska daayaan laakiin markii ay u dhowaan waayeen wuxuu bilaabay dagaal wuxuuna isla markiiba dhulka dhigay labadii askari ee waardiyaha ka ahaa.
kadib waxay isku dayeen inay xadaan diyaarad alkabtar ah. Markii uu Russell arkay iyagoo diyaaradda qaadanaya, wuxuu u dhiibay furayaashii iyo taleefan si ay xiriir ula lahaadaan. Dhanka kale, ciidankii Cornel Black waxay isku dayeen inay joojiyaan bahalada, laakiin hubkoodii iyo xitaa qaraxyadii waaweynaa waxba kama tarin, ciidankiina waa la laayay. Tani waxay keentay in Black uu go'aansado in dadka magaalada laga saaro ka hor intaan bahaladu soo gaarin. Russell ayaa xogtaas u soo diray Davis, kaas oo u qabay inaan dadka oo dhan magaalada lagaga saari karin waqti kooban. Markii George iyo Yeydii ay soo galeen magaalada, burburkii ayaa isla markiiba bilowday. Waxay dumiyeen dhismayaal, waxayna burburiyeen baabuur, xitaa waxay soo rideen diyaarad kasta oo alkabtar ah oo u soo dhawaata. Ciidanka ayaa kala hor yimid taangiyo iyo hub aad u fara badan, laakiin waxba ma ay tarin. Bahaladiina waxay ku mashquuleen inay burburiyaan wax kasta oo ka hor yimaada. Wax yar kadib waxaa webiga ka soo baxay Lizzie oo ah yaxaaskii weynaa, wuxuuna ku biiray bahaladii kale si uu u geysto burbur ka sii daran, isagoo afkiisa weyn ku qaniinayay taangiyada iyo diyaaradaha ee wadada ka hor yimid. Cornel Black oo aad u quustay ayaa amray raggiisa inay diyaariyaan bam weyn oo lagu tirtirayo kala bar magaalada si bahalada loo dilo. Russell wuxuu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo inuu ka noqdo go'aankaas, isagoo u sharaxay in Davis iyo Kate ay ku socdaan jidkii ay ku keeni lahaayeen daawada, laakiin Black ma uusan aaminin kadib markii ay diyaaraddiisa xadeen. Russellna wuu buriyey. Xilligaas Russell waxaa soo gaaray natiijadii caddaymaha laga helay shirkadda, wuxuuna u wacday gaari si uu u soo xiro dadka dambiilayaasha ah. Intii ay diyaaradda siday bamka ay kacaysay, Davis iyo Kate waxay gaareen shirkadda Energen waxayna xadeen 3 dhalo oo daawada ah. Si kastaba ha ahaatee, Claire ayaa ku aragtay kaamiradaha amniga, markaas ayay timid si ay u joojiso. Waxay u sharaxday in daawadu ay joojinayso oo keliya xanaaqa iyo dabeecadda kulul, laakiin aysan hoos u dhigayn xajmiga iyo weynida bahalka. Markaas ayay dhalooyinkii ka qaadatay Kate, waxayna toogatay Davis, kaas oo dhulka ku dhacay isagoo miyir la. Intaas kadib, Claire waxay afduubatay Kate waxayna u kaxaysay saqafka sare ee dhismaha, laakiin ka hor intaysan ku baxsan helikabtarka, George ayaa dhismihii soo fuulay oo burburiyey diyaaradda. Tani waxay sigtay nolosha Kate, laakiin xilligaas Davis ayaa soo muuqday oo soo qabtay Kate, isagoo u sharaxay in xabaddu aysan ku dhicin xubnihiisa muhiimka ah. Intii uu George ku mashquulsanaa burburinta anteenadii calaamadda dilaysay, Kate waxay shaaca ka qaaday inay ku guulaysatay inay hal dhalo oo daawada ah si qarsoodi ah u ceshato, markaan ayay ugu yaraan George badbaadin karaan. Claire ayaa isku dayday inay mar kale hor istaagto labadooda, markaasay Kate ka faa'iidaysatay fursadda oo ay daawadii ku riday boorsada Claire, kadibna feer ayay ku dhufatay iyadoo Davis uu u wacayay saaxiibkiis George. George ayaa soo muuqday oo qabsaday Claire kadibna cunay, sidaasna wuxuu ku helay daawadii ku jirtay boorsadeeda. Dhanka kale, Barrett ayaa isku dayayay inuu jaranjarada kaga baxsado, isagoo sita kombuyuutarkii ugu dambeeyay iyo dooli yar oo tijaabo ah si uu mar kale ganacsi u bilaabo mustaqbalka. Wuxuu dabaqa hoose kula kulmay Russell, sarkaalkiina wuxuu ka qaatay qalabkii uu sitay isagoo ku bedelaya inuu iska daayo halkii uu xiri lahaa. Laakiin markii uu Barrett banaanka u baxay, waxaa si lama filaan ah ugu soo dhacay burbur dhismaha oo ku kor burburay. Banaanka, Lizzie iyo xaaskii iyo Yeydii ayaa ku biiray burburinta dhismaha, halka George uu bilaabay inuu istajiyo maadaama ay daawadii shaqaysay. Davis iyo Kate waxay raaceen helikabtarkii Gona wax yar ka hor intaan dhismihii dhulka uu la sinmin. Diyaaraddii waxay ku dhacday dhulka, laakiin nasiib wanaag labadoodii way ka badbaadeen. Davis wuxuu arkay inay jiraan dad badan oo shacab ah oo weli goobta jooga, Georgina uu hadda dareemayo fiicnaansho. Lizzie iyo Yeydii ayaa bilaabay inay islaayaan, markaasuu Davis u sheegay Kate inay raadiso Russell, halka isaguna uu hub qaatay si uu George uga caawiyo dagaalka. Bahaladii waxay isdhigeen dhulka iyagoo isdhaafsanaya garaacis iyo qaniinyo aad u xun, laakiin ugu dambeyntii Lizzie ayaa dishay Yeydii isagoo qoorta kaga dhuftay qaniinyo xoog leh. Hadda dagaalku wuxuu u dhexeeyaa George iyo Lizzie, laakiin waxay u muuqataa in George uu ku dhibtoonayo inuu ka guulaysto yaxaaska weyn, markaasuu Davis ku tuuray Lizzie suun ay ku xiran yihiin bambooyinka gacanta. Nasiib darro, Lizzie wuxuu noqday mid aad u awood badan, bambooyinkiina wax weyn ma aysan yeelin. Lizzie ayaa si degdeg ah uga soo kabsaday qaraxyadii, wuxuuna George ku tuuray dhismaha, taas oo keentay in bir adag ay ka muddo laabta gorilada. Markaas ayuu Lizzie isku dayay inuu u soo dhawaado si uu u dhammaystiro George, laakiin Davis ayaa soo dhex galay isagoo isticmaalaya hub kasta oo uu ka heli karay diyaaraddii helikabtarka si uu u mashquuliyo yaxaaska. Lizzie ayaa dabin dhexda kaga dhacay, wuxuuna bilaabay inuu bursado Davis isagoo ku dhawaaday inuu dilo. Si kastaba ha ahaatee, George ayaa iska soo siibay birtii caloosha kaga jirtay, wuxuuna kor ugu booday hawada isagoo birtii kaga muday Lizzie indhaha, sidaasna wuxuu ku soo afjaray dagaalkii badnaa. Kate ayaa gaartay Russell waxayna u sheegtay in daawadii la helay. Russellna wuxuu la xiriiray Cornel Black si uu fariinta u gaarsiiyo. Black wuxuu shaashadaha ka arkay dhimashada bahaladii kale, wuxuuna go'aansaday inuu baajiyo duqayntii diyaaradaha, isagoo aqbalay in George uu hadda yahay saaxiib dhanka wanaagsan u soo wareegay. Nasiib darro, George ayaa miyir beelay kadib markii uu guulaystay. Davisna wuxuu bilaabay inuu ooyo saaxiibkiisii ugu dhawaa isagoo u malaynayay inuu dhintay. Laakiin markii uu Davis rabay inuu ka fogaado meydka, wuxuu dareemay dhaqdhaqaaq yar, wuxuuna ogaaday in George uu isyeelyeelayo oo uu keliya kaftamayo. Gorilada ayaa farta u taagtay Davis ka hor intaysan labadoodu isdhaafsan salaan gacanta ah. Hadda shaqada xigta ee Davis haysata waa inuu helo meel ku habboon oo ay geeyaan George si uu nabad ugu noolaado. Filinkuna halkan ayuu ku dhammaaday. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.